madaxweynaha xilka ka degaya ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay ka hadlay natiijada doorashada tan iyo markii la qabtay codbixinta 9 Agoosto isagoo aan si gaar ah u soo hadal qaadin magaca William Ruto balse si guud u hambaliyeeyay aniga oo ilaalinaya ballanqaadkii aan sameeyay ee ahaa in aan sharciga ilaalinayo markii aan u dhaartay xafiiska waxaan ballan qaadayaa in aan fulin doono amarada maxkamadda sare ayuu yiri Mr Kenyatta waxa uu sidoo kale u xaqiijiyay Kenyaanka in ay dhici doonto xil wareejinta oo si habsami leh loo agaasimay. Uhuru Kenyatta ayaa horaan sheegay in uu si cad u taageersan yahay ninka ah hogaamiyaha mucaaradka shacabka Kenyaanka ah ayuuna ugu baaqay in codadkooda ay siiyaan. Waxaan ku boorinayaa dalka iyo dadka in la ixtiraamo hay'adaha iyo hogaamiyayaasheena cusub ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Sanadkii 2017 madaxweynaha laftiisa ayaa guushiisa isla maxkamaddu ay laashay. William Ruto ayaa sheegay in cid kasta oo isaga mucaarad ku ah uu la shaqayn doono waliba si hufan.